dhaqameedada ugaasiyada salaadiinta iyo cuqaasha beelaha direed magaalada Dirdhabe waxaanu doonaynaa inaan ka soo saarno baaq ku wajahan sida wax u socdaan waxaanu annagoo beelihii direed ka soo horjeednaa dhammaanba dhismaha laga wado dowlad deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga taas oo baalmarsan dardaarankii ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya markii loo dhammaayay la fadhiyay uu ra'iisul wasaaruhu yiri dowladda u dhantiin oo u fadhiyaan oo shirka inta dhaadhicsan ku dhista oo cadaalada taasoo baalmarsan taa iyada oo baalmarsan cadaaladii ahayd saami qaybsiga qabaa'ilka tusaale ahaan waxaa la magacaabay hay'adii amniga komishinkii booliska la magacaabay taliyihii booliska la magacaabay ciidanka gaarka ahaa taliyihii sirdoonka la magacaabay taliyihii asluubta la magacaabay intaba hal beelaa laga magacaabay maaha midaan aqbalayno taas midaan aqbalayno maaha waxaanu ugu baaqaynaa guddoomiyaha xisbiga mudane axmed side waxaanu ugu baaqaynaa guddoomiyaha xisbiga mudane axmed side iyo madaxweyne ku-xigeenka ahna kursimaha madaxweynaha mudane mustafa maxamed cumar mustafa cagjar inay ka joogsadaan dhismaha maxlalka afduubka ah waayo durba waxbaanu tabanaynaa maadaama wax la kala tabanayo durba oo dhismihii qaabka u socda hay'adii awoodda basaa loo sameeyey waa in si degdega loo jiyaa inta la isaga imanayo haddii kale waxay noqonaysaa waxaan la isku ogolayn dhibaatay ku keenaysa madaxweynaha cusubna waxaanu ugu baaqaynaa labada qowmiyadood ee walaalaha ee isku deegaanka ah Oromada iyo Soomaalida ee ay isku direen taliskii dhiigi cabka ahay cabdi ilay iyo tigray gudubada ku watay inay joojiyaan dagaalka ay wadaan waxba iskuma laha walaalaha tihiin dagaalka inay joogsadaan baan isku baaqaynaa waxaanu kaloo ku baaqaynaa أنا أقول باقينا برلمانك أنا أقول همبليين سجالي سجاشن كي دقمو يو لبي لبعتن كي معمول مجالو أي كان نقدين أنا أقول تاكو همبليين أنا أقول باقينا في حشي حرام تحيد وحي عيد الشيء غير باكتكتين غير تاكتكتين وحوي عفرتني لو دقمي الله بقبل هو ما أقول لما أنتوا أنا يجينا كذا تكتان أو كان نقطان أيام اللي يدخل باقينا وحنسول وين نسبة الكابي أحمد isbeddelka abiy axmed baan soo dhaweynaa ra'iisul wasaaraha dalka waxaan soo dhaweynaa maamulka cusub ee hormuudka ka yahay madaxweyne ku-xigeenkaasi hase yeeshee dhismo khaldan ma yeelino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh